Nafaqadan haddii aad timahaaga amarsatid muddo yar oo kooban, hubaal inay timahaaga si degdeg ah kuugu bixi doonaan oo weliba ay dhabarka ka dagan doonaan insha Allah Ilaahay idinkiisa ayna kuu noqon doonaan timo jileeca oo furfura oo xariira oo madoowa oo qurux badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty uga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashin waa deeni 10 kale oo cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wadaa. waxaan inii sidaa maanta mowduuc inoo muhiim ah haddii aan nahnay hablo. mowduuca maanta aynoo wadana waxaa waaye walaalahayga waa tartankii timaha lagu bixinayay ayaa maanta inoo bilaabanayo oo inoo wadaa walaalahayga. tartankaas in badan ayaa isoo weydiiseen insha Allah inaad ka qayb qaadatiin ayaan rajeynayaa walaalahayga. maanta waxaa inoo furmaayo tartankii timaha lagu bixinayay. timahana maanta insha Allah waxaan tartankeena uu ku saabsan yahay oo aad timaheena aan ku baxsanaynaa waxaa waaye alaabtan weelka noogu jirto. alaabtaana waa nafaqo. nafaqadan ayaan timaheena ku bixinaynaa oo aan ku tartamaynaa hablo insha Allah. kana faa'iideysta oo kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabaha aan nafaqadan ka samaysan doono iyo sidaan u samaysanayno. waa nafaqo cajiiba oo timaha inoo bixinayso weliba si degdeg ah, timahana dhabarka inoo geynayso, timahana jileec iyo madow inooga dhigayso insha Allah. ka caajisanina, tartankana wuu inoo furan yahay. si tartiibana videoga u daawada, kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabaha aan nafaqadeena aan ka samaysan doono iyo sidaan u samaysanayno. bismillaah. nafaqadeeni timaha lagu bixinayay oo tartanka lagu galayay ayaan samaysanaynaa walaalahayga. marka hore halkan waxaa ii yaalo oo bacdan igu jiro oo u baahan tahay waa flaxseed waaye. waa mirahan flaxseed ayaa la dhahaa walaalahayga. aniga magacaas u aqaanaa, magac kale uma aqaani. haatan bacda korkeeda waxaa ku qoran nutrition ayaa ku qoran walaalahayga, laakiin magacooda saxda mirahan English ahaan flaxseed ayaa la dhahaa walaalahayga. sidaas ayaan u aqaanaa insha Allah. qofkii magac u yaqaano kale wuu nooga faa'iideyn karaa. mirahan waxaan ka soo gaday supermarket-ka ayaa ka helaysiin, meel walbana adduunka waa laga helaa walaalahayga. marka waxaan soo qaatay digsi ayaan soo qaatay, miraheeni ayaan ku shubanaynaa walaalahayga. mirahan waxaa la rabaa qiyaas ahaan inaad ku samaysatid. aniga haatan bacda sida u wada xiran tahay nus ayaan ka isticmaalayaa walaalahayga insha Allah. 2 qof camal ayaan ku marsanaynaa. haddii hal qof aad ku marsanaysid sidoo kale waxaa samaynaysaa nafaqadan nuskaas ka nuskiis ayaad isticmaalaysaa. aniga haatan meesha aan bacda haafkeed nuska isticmaalay haafkeed ayaa kasii isticmaalaysaa. markii aan digsiga aan kusoo shubanay miraheeni flaxseedka waxaan ku darsanaynaa walaalahayga bakeeri iyo haaf biyaha ayaan ku shubaynaa. hal bakeeri ayaan haatan ku shubnay, haafkii kale oo biyaha ayaan haddana ku shubnay. alaabtan waxaa la rabaa inaad qiyaas ku karsatid la rabaa, lama rabo inaad iska karisid. alaabtan dabkaan soo saaraya walaalahayga. miraheeni flaxseedka iyo biyihii aan isku darnay ayaan dabka soo saaraa, waan soo karinayaa. markii aan soo kariyo ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. alaabtan waxaa la rabaa time inaad ku karisid ilaa waxaan karinaynaa 7 daqiiqo camal ayaan karinaynaa inay noo soo karkartaa rabnaa oo jeel noo noqoto. markaas ayaa dabka ka daminaysaa. aniga haatan waa soo karinaa. markii aan soo kariyo ayaynu hadda isku soo noqonaynaa. dab aad u gaabanna ku kari. alaabtii waan soo kariyay walaalahayga. waa ujeedin hadda markii aan soo kariyay sida u jiidmayso oo u dhareerayso, sidaas ayaa la rabaa inay noqoto. jeelkaasaa la rabaa inay noqoto. markay sidaas noqoto ayaad ka daminaysaa. waa inaad timekeedana aad ku karaysaa. intay karsamaysana waa inaad xoogaa aad dul taagnaataa. lama rabo inaad ka dul tagtid, way kaa burinaysaa. markaas ka bacdina kuukarka ayay kaaga daadan kartaa. marka waa inaad dul taagnaataa. wax yar ayaan qaboojinaynaa walaalahayga. saa'iday u kulushahay marka ma la meeri karo. wax yar ayaan qaboojinaynaa, mana rabno inay saa'id noogu qabowdo. kabacdi ayaynu miiranaynaa walaalahayga. jeelka ayaan ka baxsanaynaa alaabteeni ayaan jeel ka baxsanaynaa. waxaan soo qaatay turaaxad ayaan soo qaatay iyo baaquli aan ku miiranaa alaabteeni. marka turaaxadan ayaan ku miiranaynaa. muhiim waaye mara inaa heshid alaabtan aad ku kala miirtid. jeelka iyo waxaa la rabaa inaa miraha kala saartid. maradeeni ayaynu ku shubanaynaa walaalahayga. jeelka ayaan alaabtan ka baxsanaynaa. annaga miraha haatan uma baahnin, jeelka oo kaliya ayaa inoo muhiima. marka muhiim waaye mara yar oo aad ku miiratid oo shabaq camal inaa heshid. haddii aad heli kartid bac yar oo kabaha bacyaasha lagu soo gado kalena waa okay. haatanna waa miiranaynaa walaalahayga. sidaas ayaa u miiraysaa. alaabtii ayaan wax yar oo kamida ku shubnay, kabacdina sidaas ayaa u majiijinaysaa oo jeelka uga bixinaysaa. haatan waa ujeedin wax yar cadcada ayaa kasoo baxay. marka jeelka taas waaye waan kasoo wada bixinaya walaalahayga. markii aan jeelka aan kasoo saarano ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. jeelkii waan kasoo bixinay walaalahayga. mirihii jeelkaas ayaa inooga soo baxay. mirihii oo dhanba
intaas oo jeela ayaa nooga soo baxday. marka sidaasaa la rabaa inay kaaga soo baxdo jeelka. waa inaad si fiican u miirtaa alaabtan oo aadan ka caajisin. waa taasaa walaalahayga, mirihiina gooniya u saaray, jeelkiina gooniya u saaray. miraha haatan waa iska daadinaynaa, wax macnaa nooma qabanayaan. annaga muhiimadda waxay ahayd nafaqadaas oo jeelka ah walaalahayga. alaabtaana waxaa waaye alaab karantiya oo nafaqa oo maasha allah timaha ka dhigaysa si degdegan u bixinayso. insha allah ha dhayalsanina walaalahayga. qaybteeni labaad haddii aan jeelka soo diyaarsanay ayaanu samaysanaynaa. waxaa u baahan tahay moos ayaa u baahan tahay oo hal xabo iyo jab ah. qiyaasta adiga ayay kugu xiran tahay insha allah. annaga 2 qof aan ku marsanaynaa, marka halka xabo iyo jabka mooska ayaynu nafaqadeena ku darsanaynaa walaal. mooskii waan soo fiiqay walaalahayga, kabacdina waxaan soo qaatay fargeeto yar oo qaandooyinka reereed ahayd. sidaas ayaan ugu jajabinayaa walaalahayga. mooskeena ayaan badowganaynaa. haddii aad rabtidna mooska waa shiidanaysaa, makiinada yarta oo heelka lagu shiido ayaad ku shiidan kartaa. haddii aad rabtidna sida tan ayaad u burbursan kartaa. labada dhanba waa easy insha allah. midii kuu fudud samee. muhiimadda waa inaa mooskaas oo shiidan ayaa lagaa rabaa. marka mooskeeni halka xabo iyo jabka ahaa markii aan soo jajabsanay sidaas ayuu noogu soo baxay walaalahayga. waxa uu ka baryaaya malahan moos makiinada lagu shiiday, fargeetada ayaaba ku filan. marka sidaasaa la rabaa inuu mooska kuu noqdo walaalahayga. haatan waxaan ku darsanaynaa mooskeeni jeelkeeni noo diyaarsanaa oo jeelkeeni noo miirnaa ayaan ku darsanaynaa. mooskeeni aan soo jajabsanay walaalahayga ayaan waxaa ku shubanay jeelkeeni noo diyaarsanaa oo markii hore aan diyaarsanay oo weelka yarkaa noogu jiray ayaan waxaan ku shubanay mooskeeni aan jajabsanay ayaan ku darsanay walaalahayga. marka waxaan isdhex gelinayaa jeelkii iyo mooskii ayaan si fiican iskugu qasayaa walaalahayga oo si fiican isku dhex gelinaya. alaabtan waxaa waaye alaab cajiiba maasha allah. falaxseedkana timaha nafaqaysiisaa, way bixisaa, jajabka, siibitaanka waxaasoo dhan way ka dhameysaa. timahana qurux ayay ka dhigtaa, halweynna way ka dhigtaa walaalahayga, madowna way ka dhigtaa, jileecna way ka dhigtaa. alaabteeni hadda markii aan soo qasay mooskii iyo markaan jeelka isoo dhex geliyay sidaas ayay noogu soo baxday. waxaana ku darsanaynaa walaalahayga saliidan caaga yarka noogu jirta ayaan ku darsanaynaa. waana saliid qumbo ama coconut oil. saliid qumbo yar ayaan ku darsanaynaa. meeshan saliid qumbaha uga darsanayo waxaad uga darsan kartaa saliid saytuun ama saliida kastarka ama saliida lowska. in saliid ku taal ayaa ku darsan kartaa. marka saliidii ayaan ku darsanay. alaabteeni ayaan haddana isku qasaynaa maadaama aan saliid ku darsanay. waa mooskii, waa jeelkii, waa saliida aan ku darsanay. intaas ayaan si fiican isku dhex gelinaynaa walaalahayga oo si fiican iskugu nafaqadeeni. markii aan kusoo qasanay saliidii coconutka ahayd oo qumbaha ahayd sidaas ayay noogu soo baxday maasha allah. sidaas ayayna diyaar noogu tahay. haatan kaliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo. marka sidee loo isticmaalayaa waaye alaabtan. marka hore waxaa sameysanaysaa, waa diyaarsanaysaa. markii aad diyaarsatid jeelka oo mooskii iyo wixii oo dhan aad ku darsatid ayaad timaha soo qabsanaysaa. timaha markii aad soo qabatid ayaad alaabtan marinaysaa. timaha marka hore waa kala baraysaa, salkaa ka marinaysaa. meesha ay timaha kasoo baxaan ayaad alaabtan uga masaajeynaysaa oo ka marinaysaa. si fiican ayaan u marinaysaa. geesaha timaha, dhinacyada, afka hore timaha, markaa meel walba ka marisid ayaa timahoo dhan wada marinaysaa oo wada gaarsiinaysaa oo timaha korkooda ku masaajeynaysaa. kabacdina bac yar ayaa soo qabanaysaa, madaxa gashanaysaa. waxaad ku joogaysaa 2 saacadood. 2 saacadood ayaa la rabaa nafaqadan inaad timaha kula joogtid oo timaha ay kuu huursanaadaan intaas oo bacdaada ay kugu jirto oo nafaqadii timaha ay si toos u dhex gasho. maadaama aan rabno timaha inay si degdeg u baxaan, marka waa inaad ku dadaashaa inaad nafaqadan timaha aad 2 saacadood aysid oo timaha ku huurisid. muhiim waaye inaad nafaqadan time aad siisaa timaha intii aad marisid. haddii 2 saacadood ka badan aad awoodid inaad ku joogtidna waad marsan kartaa oo waa ku joogi kartaa. marka nafaqadan sidaas ayaa loo isticmaalayaa. markii aad 2 saacadood ama time ka badan aad ku joogtid waad iska dhaqaysaa. lama rabo inaad iskaga dhaqdid alaabtan shaambo. doobiye shaambo ayaa iskaga dhaqaysaa ama condition hair ayaa iskaga dhaqaysaa. nafaqooyinka timaha lagu dhaqdo ayaad ku dhaqanaysaa. markii aad timaha conditionka ama doobiye shaambaha aad ku dhaqaysid waxaa la rabaa biyo yar oo kulul inaad kula dhaqatid. la rabaa biyo yar oo qandaca ayaa la rabaa inaad kula dhaqatid doobiye shaambaha ama conditionka ama nafaqada timaha lagu dhaqdo. lama rabo inaad timaha shaamba aad ku dhaqdid waayo shaambada ayada ayaa timaha disho. haddii ay timahaaga wasaq ahayn
conditionka ama nafaqada ayaa kuu fiican mar walbo oo aad timahaaga nafaqaysid inaad nafaqadaas ku dhaqatid oo iskaga raacisid. marka alaabtan sidaas ayaa loo isticmaalaya. insha Allah waxaan rajeynayaa walaalahayga inay fahanteen. kabacdi markaa iska dhaqdina saliid ayaa timarinaysaa, in saliid ku taalo ayaadna isticmaalaysaa. waxaana la rabaa challenge-ga haddii aad maanta aad kusoo biirtay oo nafaqadan timaha la marinayo oo lagu bixinayo, waa inaad si toos ah u wadaa. hal bil ayuu challenge-ga timaha lagu bixinayo inoo socon doona insha Allah tacaala. taariikhda aan maanta challenge-ga aan bilownana waxaa waaye bishii 3aad 21deeda, wuxuuna noogu egyahay bisha 4aad 21deeda. halkaas bil waa inaad nafaqadan si toos ah timaha u marisaa. bishana waxaad u marsanaysaa alaabta nafaqada maalin kasta ma marsanaysid. waxaa marsanaysaa maanta oo kale haddii aan nafaqadan aad bilowday oo timaha aad marisay 2 maalin ka bacdi ayaa marsanaysaa. waa inaad waqtigaaga aad tirsataa oo challenge-gana hadde aad si fiican uga qayb qaadataa insha Allah. haddii aad rabtid timaha inay kuu baxaan, hubaal inay timahaaga ay si degdeg kugu bixi doonaan haddii aan nafaqadan muddadaas halka bil ah aawadid. insha Allah ilaahay idinkiis nafaqadan saliidii timaha lagu marsanayana waa inoo soo gelinayaa walaalahayga. maanta laga bilaabana hadde challenge-ga timaha uu inoo furan yahay. waxaa inoo ballana bisha 4aad 21deeda group ayaa inoo sameyn doona insha Allah, oo halkaas ayaan ku kala axwaal qaadanaynaa. waxaana hadda igala soo hadli kartiin page-keena aan furanay oo Facebook-ga Najax Beauty ayaa nambaradiina insha Allah igu soo diri kartiin messenger-ka luuqa igu soo wada dira haddii aad ka cabsanaysiin in halkaan ay igu soo dirtiin walaalahayga, ama Facebook-gayga Najax Kitchen and Beauty nambaradiina igu soo wada dira. halkaas ayaa inoo ballana group ayaan sameysanaynaa. groupkaas ayaa axwaash ku kala qaadanaynaa. halkaana waa igu soo diri kartiin insha Allah. shaqo wacan hablahayga waa inoo bilaabatay shaqadii timaha lagu bixinayay. halkaasna hadda shaqada ka haaya hana ka caajisinina timaha walaalahayga. nafaqadan waxaa waaye nafaqa cajiiba oo timaha hadde dhabarka geynaysa waliba si degdeg ah. samir oo kaliya ayay u baahan